mustafa xaj ismaaciil haaruun baa la yidhaahdaa reer wadaadaaba ka dhashay aabbahay xaaji baa uu ku magac dheeraan sheekh uu ahaa awogay aw haaruun baa la odhan jiray awogay ka dambeeya aw yuusuf baa la odhan jiray reer culummo oo diin ku taxan ayaan ka dhashay reer ahaan gobolka burcaan ku dhashay wakhtigii isticmaarkaanan dhashay intii aan dowladda soomaaliyeed dhalanin dadka geedka hoostiisa ku dhashayna waa ka mid ahay inkastoo aabbahay allah u naxariisto 45 sannadood buu cadan deganaa 1963 buu ka soo noqday laakiin dhaqanku wuxuu ahaa in islaamaha loo diro baadiyo ay baadiyo ku dhashaan iyadoo la diidan yahay dhakhtarka iyo raggaa joogiya waxaasi aanay islaamuhu rabin ee loo diro hooyadeedoo baadiyo joogta inay baadiyo lagu soo umuro intaanu walaalaanay nin qura nagaga dhashay cadan intayadii kaleba baadiyaana loo diray baadiyaanu ku soo dhalannay baadiyaha gobolka togdheer ee burco ayaan ku dhashay isagaan wax ku bartay malcaamad dugsi hoose dugsi dhexe institutekii jarmalka ee burco ku yaalay intaasaan ka baxay takhasuskaygu tumaalnimada laydhku ahaa jaamacaddii soomaaliyeed baan ka baxay 1980kii iyadana takhasuskaygu tumaal laydha baan kaga baxay korontada ya tumaalku waa farsamo yaqaan laydh baan kaga baxay jaamacadda kadibna waxaan noqday macallin dugsiga farsamada gacanta ee jarmalku dhisay ku yaalla magaalada burcan macallin ka noqday markaan muddo sanad iyo bar meelaha joogay dowladdii soomaaliyeed baa ay xidhay dowladdaas soomaaliyeed ma rabo wax badan inaan ka sheego laakiin intay meelooda wax ku xidhi jirtayba waan soo maray station police waa laygu xidhay NSS waa laygu xidhay xero gulwado waa laygu xidhay xero military waa laygu xidhay dhabarjabin waa laygu xidhay jeel waa laygu xidhay weligeyna maxkamad layma taagin mararka qaarkoodna sanadaan ku jiray mararka qaarkood baan 30 bilood ku jiray calaa kulli xaal waxbarashada diineedna waxun bay ahayd un culamada soomaaliyeed ee waddanka degan wixii aanu ka bowsanay ma jirin waddan dabadeed aanu baxay intii dambana saanu joogo un waddanka soomaaliya ayaa dagaaladii jabhaduhu ka dhaceen magaalada burcaan joogay markii 1988 jabhadu soo gashay wakhtigaas baan waddanka ka baxay yurub iyo meelahaasaan niman xanuunsanayo aan walaalana geeyey anigoo yurub joogaa dowladdii soomaaliyeedna dhacday ilaa 99kii baan deganaa yurub march 1999 baan dib ugu soo noqday magaalada hargeysa ilaa haddana hargeysaan deganay laakiin socodkayga yurub waa tiro badan yihi 21 sannadood dambe burciya hargeysa un baan ka dhexeeya laakiin waa badan yahay socodkayga aan ku noqnoqdo yurub iyo meelahaan ku noqdo qaab nololeedkii soomaaliya waagii horena ee lixdanaadkiina democracy bay ahayd democracy qabiilkan uun ku salaysan haddaba aragtaan waxaan xasuustaa iyadoo 1969 meelaha markii doorashooyinkii dhacayeen dadku intay waddada maraan baa waxaa la odhan jiray dhulka yaale ilaahay baa leh ka sokowna reer hebel baa leh saasa cirka yaale cirka iyo dhulkaa la sheegan jiray heballada jiray dowladdii kacaanka ee soomaaliyeed markay qabsatayna scientific socialism baa la qaatay scientific socialismkuna wuxuu noqday diin la dirir annaguna dhallinyaro uun markaa waxoogaa diinta ka garatay oo aan sistamkaa ku qanacsanayne hortaagan baanu ahayn ma jirin cilmigu sidanuu hadda u faafsan yahay oo dowladdii soomaaliyeed waxay lahayd censorship aan ogolayn kitaab aan dowladdu ogolaanin waddanka ma soo geli jirin
waddankuna sidan uu iminka isaga furaya isagama furray diyaaradaha dibadda ka yimaada only xamaroo ka soo degi jirtay lama ogola in waddanka inta kale diyaarad dabadeed inay ka soo degto isaa daraaddeed wax kasta oo waddanka soo gala censorship faafreeb wax la yidhahdo soo mari jiray marka kutubtu almost mamnuuc bay ahayd haddaan qiso idiin sheego dhowr iyo toddobaatankii anigoo dumar tafsiir u dhigaya habeenkii baan dhigi jirnay guri madow habeenku markuu dam noqdo ayaad guri tegaysaa dabeetana halkaasaad waxoogaa dhowr dumaroo la soo ururiyey tafsiir ugu akhriyaysa tafsiirkan haystee markaa waxaa kitaabkan jalaalaynka la yidhaahdo jalaalaynadii waagaa dadku haysteen iskuma rakibnayn waxay ahaan jireen dhowr xaashiyoodba way isku jiri jireen dabeetana gal sare buu leeyahy ku daboolan habeenba labada xaashiyood aad dhigaysaad kala baxaysaa ila wuu furfuran yahay labadii baan la soo baxay habeenkii anigoo meel la sii dhukusaya ayaa dabayliyey timo labadiina dabayshii baa qaadatay yacni kutub ma taallo badani aad bay cidhiidhi u ahayd culimo waddanka waa deganayd laakiin lama ogolayn inay wax dhigaan ama wax akhriyaan bale waxaa laga yaabaa haddaad nin dhallinyaro ah tahay inuu kaa boqo waayo dowladda ku xidhaysa inuu kaa fogaado nin inuu tafsiir caama ama akhriyi jiray weliba soomaaliya waagaasi tafsiirka bisha ramadaan unbaa inta badan la akhriyi jiray waqtiyada kale kutubta fiqiga ama naxwa ama waxaasaa la akhriyi jiray على كل حال waxaan uga daleeyahay aan arrintan u tilmaamayo waxa weeyaan jaaniska idinku haysataan ma oolin waaga jaaniskana ay kutubtu bahalka yar jeeb ku sidataan ku jirto meel kasta lagu iibinayo ay kitaab aad u baahato aad helayso electronically aad shaamilo soo download garaynayso oo dhowr iyo 10,000 oo mujalladay ku jiraan yani jaaniska sida tan ee qofku research samayn kara wax baxthi kara wax baari kara waaga ma oolin laakiin waxa yaalay dad committed oo dadaalaya mala daacadnimana ku jirto oo in ilaahay waxa ugu dhawaadaan ay ku jirto marka aanu qadiyada jecel inaan ku celiyo waxa weeyaan war nicmada haysataan ee ku saabsiisan diintu sida ay maanta u fududahay inuu qofku barto may jirin may oolin waxay ahayd wax aada u cidhiidhiya sidaad u xasilaysaana ay inta badan ku xidhnaanayso sida aad wax u akhrido xataa iyadoo wax akhriskaagu fiican yahayna aanad helaynin wixii aad akhriyi lahayd uu cidhiidhi kugu gelayo intan dambena dee meelaha un soomaalidu joogto baan wax ka sheegi jirnay anigu macallin baan ahaan jiray saa daraaddeed sheekh maan noqonin weli bana gaadhin macallinkuna daris loo diro buu soo diyaariyaa oo uu daadhiga waana laga yaabaa wakti aanay culammada soomaaliyeed haysanin qalabkan technology-ga inaan un yurub ka hortegay oo wax akhriyo dad wuxuu akhriyay waxaan xasuustaa cajaladahan ugu badane hore ee 90yadii dadku dhegaysan jireen maqaaxaan ku akhriyi jiray Soomaaliyeed oo Norway maqaaxid Somali Welfare la yiraahdo Somali Welfare Organization ayaan ku dhawaan labadii toddobaad maalin wax maydeen akhriyaa oo ka saydaadeen niman carabaha ka tagay oo aan diinta isku fiicnayn baa ku badnaa markaasaan bilaabay inaan muxaadaraad xawla al-iimaan arkaan al-iimaan iyo xawla al-xadaara al-islaamiyya inaan ka warramo nin dhallinyaro baan hadal badan 2 saac iyo dheeraad baan maalin ilaa 14 cashaan mar helaya marka waxay noqotay markaa inaan 2 saac iyo dheeraad hadlo dadka markaa cajaladahaas baa soo gaadho markaas la siiyay mala ninka sheekh weyn waa sheekh weyn marna ma noqonin laakiin uun fursad aanay jirin anigu in wax la duubo maan rabin waxaan xasuustaa waxba ha duubinaan ku yidhi nin dhallinyaro baa intuu kamarad iska soo qaatay buu wuxuu yidhi sheekha ma fadhiyo wax akhriya ma iskatay halka dambe la fadhiistay markaa waxaan kala doortay inaan wax akhriyo iyo inaan iska tago markaasaan iska akhriyey dariskii dambaan imi maalintii dambe cajaladu sidan imanka ay u badayn uma badnayna VHS bay ahaan jireen VHS-kana warshad baa badin jirtay keliya
intay cajiladii qaadeen bay warshad geeyeen dabeetana dhowr boqol oo cajiladood bay ka dhigeen iyagoo meesha ku iibinayaan ugu imin cabdillaahi xuseen kaahiye la yidhaahda iyo inaa loorana la yidhaahda iyo axmed baaruud iyo iyagoo iibinayaan waar waa sidee dee waxaana iibinaysaa waxay dhahayn sheekh masaajidkaan kirada kaga bixinayna markaasaa iska aamusoo sirida masaajidkaan kirada halagaga bixiyo marka waxaan dadku duubayna anigu kuma talagelina inaan duubo tvna weli ma tegin raadiyona weli ma tegin wadaadku su-aalaha badan uu dadka weydiinayana malaa in isagu ka jawaabaa bay ku fiican tahay anigu intaasaan ku gabagabaynaya wasalaam